لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. weli waxaan ku dhex jirnaa suuratu albaqara iyo qisadii nebi ciise calayhi assalaam iyo dhalashadiisa iyo ilaahay mucjizooyinkii waaweynaa ee nebi ciise uu ku karaameeyey. waa rasuul buu yidhi oo reer bani israa'iil loo diray. wuxuu odhanayaa, anigu waxaan idinla imid aayad oo rabbigiin xaggiisa ka ahaatay. anigu waxaan abuurayaa oon dhoobada xaggeeda idinkaga samaynayaa saansaan iyo qaab shimbireed. kolkaasaan afuufayaa dhexdiisa, shimbir buu noqonayaa ilaahay idinkii. waxaan daawaynayaa midka indhala'aanta ku dhashay, ninka cudurka baraskaa qaba. waxa dhintayna waa noolayn. awooddayda ma ahee waa biidnillaahi, ilaahay idinkii. waxaan idiin warramayaa waxaad cunaysaan iyo waxaad guryihiinna ku keedsanaysaan. arrintaasi waa aayad idinkay idiin tahay haddaad mu'miniin tihiin. waxaan rumaynayaa wixii hortayda ahaadayoo towraad ah. waxaan idiin xalaalaynayaa kii laydinka xaaraantinimeeyey gobol ka mid ah. aabay gobolkii kale waa waxaan loo baahnayn. waxaan idinla imid aayad xagga rabbigiin idinkaga ahaatee. rabbi ka cabsadoo ani i ateeca. ina allaha rabbii wa rabbukum, ilaahay waa rabbigay waana rabbigiini. facbuduuhu haadaa siraatun mustaqiim. allaha keligii ah caabuda waa waddo mustaqiim ahe. falammaa goortii axassa uu dareemay ciisa, nebi ciise, minhum xaggooda alkufra, kufri iyo gaalnimo markuu ka dareemay, qaala wuxuu yidhi, man ansaarii, yaa iigu gargaarahaya ilallaahi, ilaahay diintiisa. ilaahay xaggiisa iyo dacwada iyo in ummadda diinta la gaarsiiye diinta alleh yaa iigu nusraynaya, iigu taageerayo gacan igu siinahaya. qaala alxawaariyuuna, nimankii xawaariyiinta ahaa waxay dhaheen, naxnu anagu ansaarullaahi, ilaahay ansaartiisaannu nahay. annagaa ah kuwii ilaahay kuugu gargaarahaya diintiisa. aamanna, waan rumaynay billaahi, ilaahay baan rumaynaye. washhad, markhaati noqo ciisow biannana anagu muslimuuna, kuwa muslimiin ah oo hoggaansan inaan nahay. ilaahay wuxuu tilmaamayaa nebi ciise mar allaala markii nimankaasaa uu u waaniyey reer bani israa'iil xaqa iyo wax kasta uu u sheegay, laakiin ay weli diidan yihiin. kufri iyo gaalnimona xaggooda uu ka dareemay. falammaa goortii axassa uu dareemay ciise minhum xaggooda alkufra, kufri iyo gaalnimo, qaala ciise wuxuu yidhi, man ansaarii, yaa ii gargaaraya ilallaahi, ilaahay xaggiisa yaa iigu gargaaraya. diinta alle xoojinteeda yaa iigu gargaaraya. ummadda in diinka alla loogu waco yaa iigu gargaarahaya. qaala alxawaariyuuna, nimankii xawaariyiinta waa raggii ciise rumeeyey qaaska ahaaye, naxnu ansaarullaahi, annagu ansaartii allaannu nahay bay dhaheen. kuwii ilaahay u gargaarayaan nahay. aamanna, waana rumaynay billaahi, ilaahay. ee washhad, marag fur, markhaati noqo biannana anagu muslimuuna, kuwa muslimiin ah oo hoggaansan inaan nahay. rabbanaa, rabbigeeniyow, aamannaa, waan rumaynay bimaa anzalta, wixii aad soo dejisay. waattabacnaa, waana raacnay alrasuula, rasuulkii aad noo soo dirtayna waan raacnee. faktubnaa, allowna qor oo maca ashaahidiina, kuwa shaahidiintee marag furaya micigooda allow nagu qor. ummatu muxamed waaye bay qaar yidhaahdeen. rabbanaa aamanna, rabbiyo waan rumaynay bimaa anzalta, wixii aad soo dejisay. waattabacnaa, waan raacnay alrasuula,
rasuulkii baan raacnaye faktubnaa allowna qor oo maca ashaahidiina kuwa shaahidiinta ay marag furaya micigooda nagu qor. wamakaruu way makri faleen, waxay ku dhagar faleen oo ay u makri faleen ciise. weli waxay maleegeen shirqool ah inay dilaan. wamakara allaahu, ilaahayna wuu makri falay. wallaahu ilaahay khayru almaakiriina, inta maakiriintee magarfashee dhagarfasha midka u khayr badan waaye subxaana wa tacaala. ilantiisaa soconaysa. mar walba waxa ay shirqoolaan ama ay maleegaan wuu furfurmaa. rabbise waxa uu doono way socdaan. wamakaruu way makri faleen, way dhagar faleen oo waxay u sameeyeen shirqool ay ciise ku dilaan. wamakara allaahu, ilaahayna wuu makri falayoo ciise inuu badbaadiyo yaa ilaahay doonay. wallaahu ilaahayna waa khayru almaakiriina, inta maakiriintee dhagar fasha midka u khayr badan subxaana wa tacaala. id waqti balxus qaala allaahu ilaahay uu yidhi yaa ciisa, ciisow innii anigu mutawafiika waan ku oofsanayaa. mutawafiika waxaa suuragal ah in loola jeedo waan ku hurdisiinayaa, waayo nebi ciise ma uusan dhiman sida noo imaan doonta. wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lahum, waa loo ekaysiiyey. bal rafacahu allaahu ilay, ilaahay baa xaggiisa u kor qaatay. id waqti balxus qaala allaahu ilaahay uu yidhi yaa ciisa, ciisow innii mutawafiika, anigu waan ku oofsanoo macnaha waan ku hurdisiinayaa. ilaahay subxaana wa tacaala waa midka yatawafaakum biاlleyl wayaclamu maa jaraxtum biاnnahaar. allah waa midka idin oofsado macnaha idin hurdisiiya. waayo tawafiga inta badan mararka gobol ka mida qur'aanka hurdada wuu ku tilmaamaa. allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha waalatii lam tamut fii manaamiha, mid allaala midaan la dilinna hurdadaa lagu oofsadaa. innii mutawafiika, waan ku hurdisiin. wa raaficuka, kii ku kor yeelahaya ayaan ahay. innii anigu mutawafiika, mid ku hurdisiinahayaan ahay. wa raaficuka, waan ku kor yeelayaayo mid kuu soo kor qaadaya ilaya xaggaygaan ahay. wa mutahiruka, waan kaa tahirayaa oo waxaan kaa nadiifinayaa min aladiina kuwii xaggooda kafaruu kufriyey. wa jaacilu aladiina, kuwiina waan yeelayaa ittabacuuka ku raacay. wa jaacilu aladiina ittabacuuka fowqa aladiina, kuwii dushooda ayaan yeelayaa kafaruu gaaloobay ilaa yowmi alqiyaamati, ilaa maalinta qiyaame laga gaaro. kuwaa gaaloobay yuhuuddaa suuragala in loola jeedo, ama waa intii qoomkiisa ka midee markaa inkirtay. intan rumaysay ayaan kor u qaadayaa, mar walba way ka saraynayaan. in allaala inta adduunku ka baaba'o maalinta qiyaame la gaarana ayagaa kor ahaanaya. oo kaafiriintii kuwii kufriyey ayaa laga kor qaadayaa kuwii rumeeyey. uma intaa kadib ilaya, xaggayga ayaa marjicukum noqodkiinu ahaaday. fa axkumu, waan xukminayaa baynakum dhexdiina fii maa shaygii kuntum aad ahaydeen fiihi dhexdiisa takhtalifuuna kuwa isku khilaafa. wixii aad isaga hor timideen, qaar baa yidhi ciise waa cabdullaahi, addoon allay rasuulkii alle. qaar baa fallaagoobo intay dhinac u baxeen yidhi asaga laftigiisaaba ilaah ah. qolaa dhinac kale aadoo waxay dhaheen waa inan ilaah dhalay. qaaraa waxay dhaheen waa waxaan la garanaynin oo aabba aan markaa lahayn. weliba makriga ay faleen boqorkii meesha degganaa intay u tageen ayay dhaheen nin aan la garanayn, aabbana lahayn, oo ummaddana qarribaa nagu dhex jira. wuxuu amar ku dhiibay in la dilo. shirqoolkaabay sameeyeen, allah ka badbaadiyey. meeshii ay fadhiyey iyo gurigii ay ku jireen asagii tulaabtiisa iyo intii rumaysay hareereeyeen. ilaahay baa kor u qaatay subxaana wa tacaala. waxaa loo ekaysiiyey nin dadkii ka mid ahaa, kaasay markaa dileen. xaaladdaasuu ilaahay tilmaamayaa. marka waxay isku khilaafeen waa la xukmin. fa axkumu baynakum, baynkiina waan xukminayaa fii maa shaygii kuntum aad ahaydeen fiihi dhexdiisa takhtalifuuna, kuwa markaa isku khilaafa. fa ama aladiina kubii kafaruu gaaloobay oo kufriyey fa ucadibuhum, waan cadaabi buu yidhi ilaahay. cadaaban cadaab oo shadiidan daran baan fi اdunyaa wاlaakhirati, addunya aakhiraba ku cadaabi.
wamaa lahum mana u sugnaanin oo uma sugnaanaysa min naasiriina naasiriinta iyo kuwa gargaara xaggoodana wax uga sugnaanayo gargaar ah iyo gacansiina ma jiro. waa intii ilaahay beenisay, nebi ciise ku aflagaadootay, waxaan u cuntamin nebigii ku yidhi, intii xaaladoodu saa ay tahoo amarkii alla inkiray, kuwa cadaab shadiidaan cadaabaya, adduun baan ku cadaabi iyo aakhiro. wamaa lahum min naasiriina naasiriinta xaggooda wax ugama sugnaanin. wa ama aladiina kuwiisa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal qabtay oo camal sameeyey camal alsaalixaati ee fiicfiicanna fayuwafiihim waanu oofin kuwaana ujuurahum ajryaalkooda. wallaahu ilaahayna laa yuxibbu ma jecla aldaalimiina kuwa daalimiinta ah, gardara badanayaasha ilaahay ma jecla subxaana wa tacaala. daalimiinta dulmi badanayaasha ah ilaahay ma jecla subxaana wa tacaala. wa ama aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wacamilu asaalixaati camalada saalixaadkee fiicfiican la yimid fayuwafiihim wuu oofin ilaahay ujuurahum ajryaalkooda. wallaahu ilaahayna laa yuxibbu ma jecla aldaalimiina kuwa daalimiinta ah. daalika buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala arrinkaa, daalika arrinkaana natluuhu waanu aqrinaynaa. daalika kaa iyo qisada iyo arrimooyinkaa natluuhu waanu aqrinaynaa buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. natluuhu waan aqrinaynaa arrinkaa calayka korkaaga oo min alaayaati aayaadka ka mid ah, xaal uu ka mid yahay aayaadkii alle, min alaayaati waaldikri xaal uu ka mid yahay dikrigii, qur'aankiina markaa uu ka mid yahay dikrigii alxakiimi xikmada lahaa, kaa aan tilmaamayna iyo qisooyinkaa iyo arrimooyinkaasoo dhanba. daalika natluuhu waanu aqrinaynaa arrinkaa calayka korkaagaan ku aqrinaynaa min alaayaati aayaadka xaggiisa asagoo ka mid ah iyo waaldikri dikrigii iyo qur'aankii alxakiimi xikmada lahaa. inna mathala ciise tusaalihiisa in badan bay tilmaameen ciise intay ku xadgudbeen oo ay dhaheen ciise waa in la caabudaa. sababtu waxay tahay aabbala-aan buu dhashay ama asagii baaba nebi ah. warsay ku dhici kartaa soo waxyaabo kale oo noocaasa ma jiraan. tusaale baa la siinayaa. inna mathala ciise tusaalihiisa iyo mathalkiisa cinda allaahi alla agtiisa ka mathali aadama waa aadam oo kale. khalaqahu alla wuu abuuray. aadam wuxuu ka abuuray min turaabin ciid, uma ka bacdi qaala wuxuu ku yidhi lahu aadam iyo wixii la sameeyey, kun ahaw fayakuunu wuuna ahaaday. ahaw baa la yidhi fayakuunu wuuna ahaanayaa. isla markii ahaw la yidhi wuu ahaaday. mathalka ciise waad u jeedaan. hadduusan aabba lahayn oo hooyo keliya ay dhashay, aadam sow uma jeedaan aabba iyo hooyo toona lahayn. soo mathal u dhigma sow ma aha ka mathali aadama. inna mathala ciise mathalkiisii tusaalihiisa cinda allaahi alla agtiisa waa ka mathali aadama aadam oo kale. khalaqahu alla wuu abuuray aadam oo min turaabin ciid buu ka abuuray. uma ka bacdi qaala lahu wuxuu ku yidhi kun ahaw fayakuun wuuna ahaaday. alxaqu xaquna min rabbika rabbigaa xaggiisuu ka ahaaday rasuulkii allow. falaa takun ha ahaanin min almumtariina kuwa shakinaya ha ka mid noqon buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. ciise waa kaasaa uu awoodda alleh waxaa lagu qalqay aabba la'aan. aadam waad u jeeddaa hooyii aabbatoona ma laha. xaawaa imaan doonto aabbaa leedahayoo aadam baa laga abuuray hooye ma laha. arrimooyinkaasoo dhan waa mucjisooyinkii awoodda alleh. bani aadamka inta ka soo harayna waxaannu ka dhignay nasalkiisii faraciisa min sulaalatin min maa'in mahiin, wax la soo miiray oo biyo mahiinoo xaqiira laga abuuray. alxaqu min rabbika xaqa rabbigaa xaggiisuu ahaaday. ee falaa takun ha ahaanin min almumtariina kuwa shakinaya ha ka mid noqonin. faman xaajaka qofkii kula murma
qofkii kugula dooda fiihi ciise arrintiisa min bacdi maa jaa'aka markii ay kuu timid kadib min alcilmi cilmiga xaggiisa faqul ku dheh tacaalow kaalaya. waa wafdigii reer najraani ahaa. sannadii 9aad bay rasuulka u soo galeen. ciise arrintiisay aad kala murmeen, way inkireen sida ay muslimiintu qabaan oo ah inuu addoon allay rasuul ilaahay yahay. sidaa darteed buu ilaahay yidhi faman xaajaka qofkii kaagala murma, qofkii kuula dooda fiihi ciise arrintiisa min bacdi maa jaa'aka min alcilm cilmigii iyo ogaalkii markuu kuu yimid ka bacdi faqul dheh tacaalow kaalaya nadcu abnaa'ana aan u wacno aan u yeerna abnaa'ana ilmaheeniya wa abnaa'akum ilmihiina wa nisaa'anaa haweenkayagiyo wa nisaa'akum naagihiina wa anfusanaa nafafyaalkeenna iyo wa anfusakum nafafyaalkiina humma nabtahil kadibna aan habaartanne isku imaada fanajcal aanu yeelna lacnatallaahi ilaahay lacnadiisa cala alkaadibiina kuwa beenta sheegaya. war haddaad muran wixiinu yahay si kasta xaqa laydinkugu sheegay aad diidan tihiin idan aan ishabaarno. labadeenna qoloqolada xaqa ku taagan inuu alla badbaadiyo, kuwan xaqa ku taagnayn ee beenaalayaasha ah ciisena been ka sheegahaya lacnadda alle inay korkooda ahaato. faadima, xasan, xusein intuu soo waday buu soo baxay. maalintaa ma aysan imaanin, wayna inkireen, wayna diideen inay ka soo qayb galaan. idan waxaa la ogaaday inay kaadibiinta ayagu yihiin. faman xaajaka qofkii murma fiihi kugula murma ciise arrintiisa min bacdi maa jaa'aka min alcilmi cilmigii markuu kuu yimid ka bacdi faqul dheh tacaalow kaalaya oo nadcu abnaa'ana ilmaheena aan u wacniy wa abnaa'akum carruurtiina wa nisaa'ana naagahayagiyo wa nisaa'akum naagihiina wa anfusanaa nafafyaalkeena aan soo baxna wa anfusakum iyo nafafyaalkiina humma ka bacdi nabtahil aan habaartanne aan inkaartanna oo fanajcal aan yeelna lacnatallaahi ilaahay lacnadiisa cala alkaadibiina beenaalayaasha. ina haadaa arrintaa lahwa ayadu alqasasu waa qisooyinkii alxaqu ee xaqa ahaa. ina haadaa midani lahuwa alqasasu alxaqu waa qisooyinkii xaqa iyo dhabta ahaa. wamaa min ilaahin ilaahna ma jira ila allaahu ilaahay mooyaane. wamaa min ilaahin ilaah ma jiro ila allaahu ilaaha xaqaa maahane. alla kale xaqnimo lagu caabudo ma laha. wa ina allaha ilaahayna lahuwa alcasiizu waa alla casiis ahoo amarkiisu qaalib yahay. alxakiimun ee fal fiican. fain tawallow ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala haddii ay jeystaan. saasaa xaqii iyo wanaaggii loogu bayaaniyey. kaalaya habaartankiina way diideen. haddii ay jeestaan rasuulkii allah fain tawallow faina allaha ilaahay caliimun alla ku cilmi badan waaye bilmufsidiina kuwa mufsidiinta. qul dheh yaa ahla alkitaabi kitaabka ehelkiisiiyow tacaalow kaalaya ilaa kelimatin kelimad intii ka ah u imaada sawaa'in eg baynanaa wa baynakum kelimadaasi waxay simaysaa oo ay jimaynaysaa annaga iyo idinka way noo dhaxaysaa. maxay tahay kelimada? anlaa nacbuda inaanan caabudin ila allaha ilaahay mooye, walaa nushrika aanan u shariig yeelin bihi ilaahay shay-an waxba, walaa yattakhida inuusan ka samaysanin bacdunaa qaarkeen bacdan qaarka kale arbaaban rabbiyaala min duuni illaahi ilaahay sukadiisa. ilaahay sukadiisa inaan la iscaabudinoo rabbiyaalo aan la noqon. waayo saxaabadu waxay dhihi jireen waxaana loo soo saaray oon idinkugu nimid gaalay inaan dadka ka saarno ama aan idinka saarno addoonnimadaad addoommada addoomma u tihiin, iina idin bixino ilaa addoomma ay rabbilcibaad addoommada rabbigooda inaad addoon u noqotaan. xaaladda noocaasay way noo eg tahay warqad kasta oo uu diraya nebiga, wufuuddana uu ula dirahayay nimanka ahlu kitaabka carab iyo cajamba waa ugu qori jiray. walaa yattakhida inuusan yeelanin bacdunaa qaarkeen bacdan qaarka kale arbaaban rabbiyaala min duuni illaahi ilaahay ka soo haray. fain tawallow haddii ay jeestaanna faquuluu dhaha faquuluu ishhaduu
ishhaduu markhaati noqda bianna anagu muslimuuna muslimiin inaan nahay yaa ahla alkitaabi kitaabka ehelkiisiiyow lima tuxaajuuna maxaad u murmaysaan maxaad uga doodaysaan fii ibraahiima ibraahim wamaa unzilat waxaal maa unzilat aanba la soo dejinba altawraatu kitaabkii towraad iyo walinjiilu injiilba ilaa min bacdi asaga kadib maahane afalaa tacqiluuna miyaadan caqli lahayn ahlu kitaabka yuhuud waxay odhan jireen ibraahim annaguu naga mid yahay diintiisaannu haysanaa nasaara halkaa ka soo qaylisoo waxay tidhi ibraahim annaguu naga mid yahay diintiisaanna haysanaa xataa mushrikiintii carab ayaa sheegtay ibraahim in ayagu uu ka mid yahay markaasuu ilaah yidhi yaa ahla alkitaabi lima tuxaajuuna maxaad u murmaysaan maxaad ugu doodaysaan fii ibraahiima ibraahim ma idinkaa ibraahim sheegan karaba waayo wamaa unzilat altawraatu towraad maba la soo dejinba waalinjiilu injiilna lama soo dejin ilaa min bacdi asaga kadib maahane wayba ka dambeeyeenba ibraahim baa horeeyey ilaa min bacdihi seed ku sheegataan marka beenaale waxaa lagu yaqaanaa hadalkiisaa iskhilaafa waxyaabo fara badan buu sheegtaa sidaa darteed oo aan waxba ka jirin afalaa tacqiluuna caqli qaadan maysaan miya haa antum adinku haaulaa'i kuwan baad tihiin xaajajtum waa doodeenoo fii maa waxaad ku doodeen shaygii lakum adinka bihi shaygaa cilmun ogaalkaad ku lahaydeen wixii cilmi aad u lahaydeen waad ku doodeene falima tuxaajuuna maxaad ugu murmaysaan fii maa shay laysa lakum uusan idinkugu sugnayn bihi shaygaa cilmun ogaal wallaahu ilaahay yaclamu wuu og yahay wa antum adinkuna laa taclamuuna ma ogidiine ilaahay waa garanayaa xaqiiqda sida ay tahay amarkiisa qaata idinka laakiin waxaad kala og tihiin ma laha ciise aabbala'aan buu dhashay alla saan waay waa wax cilmi aad u leedihiin aad baqaldanaatiinee maxaad ugu doodaysaan waxaadan cilmi u lahayn ibraahim ooba idinka horeey waxaa noo imaan doontaa ibraahim inuusan yahuudi iyo nasraani intaba markaa ahayn ayaa loo caddayn doonaa sidaa darteed buu ilaah yidhi maxaad ugu doodaysaan falima tuxaajuuna maxaad u murmaysaan fii maa shay laysa lakum uusan idinkugu sugnayn bihi shaygaa cilmun ogaal wallaahu yaclamu ilaahay wuu og yahay wa antum adinkuna laa taclamuuna ma ogidiin maa kaana ma ahaanin ibraahiim yahuudiyan yahuudi ma aha walaa nasraaniyan nasraanina ma aha waxa ay sheeganayaan kulli waxba kama jiro walaakinse kaana xaniifan ibraahim waa xaniif musliman muslim ah wamaa kaana mana ka mid aha ibraahim oo ma ahaanin min almushrikiina mushrikiinta mid ka mid ahna ma ahee waa xaniif baatil iyo diin kastoo baatil ah buu ka soo iishay xaniif waaye mid soo iishay oo diinta islaamka keliya u soo iishay haddana muslim ahoo ilaahay u hoggaansan wamaa kaana min almushrikiina mushrikiinta ka mid maaha haddaba yahuudi haddii loo diiday inay ibraahim sheegtaan nasraaniyiintana loo diiday mushrikiintana loo diiday oo intabaysan waxba ka jirin yaa sheegan kara marka ibraahim inna awla annaasi dadka kuwa ugu habboon inay u nisba sheegtaan oy ku abtirsadaan oo ay sheegtaan inna awla annaasi dadka kuwa ugu habboonaashada badan biibraahiima ibraahim laladiina kuwii waaye ittabacuuhu raacay iyo wahaada annebiyu nebigan ee kan ahee nebi muxamed ah iyo waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey wallaahu ilaahayna waliyu lmu'miniin mu'miniinta ayuu weli u yahay subxaanahu wa tacaala mu'miniinta weligoodii waaye idan ibraahim waxaa sheegan karaa in allaala intii asaga raacday laakiin mushrik baa noqonaya alla keyrkiiba wax u gowracayaa kacbadan asnaam ku caabudaya ibraahim baan sheeganayaa ma soconayso ibraahim baan u nisba sheeganayaa ilaahay baan inkirayaa nebi moxamed baan beeninayaa ma soconayso wahaada annebiyu iyo nebigan ee kan ah iyo waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey wallaahu ilaahayna waliyu lmu'miniina mu'miniinta weligooda waaye waddad waxay jeclaysteen taa'ifatun koox waxay jeclaatay oo min ahli lkitaabi ahlu kitaabka ka mid ah low yudiluunakum inay idin dhumin lahaayeen
alla mar uun inay idin dhumiyaan bay jeclaysteen koox ahlu kitaabka ka mid ah. wamaa yudiluuna mana luminayaan ilaa anfusahum nafafyaalkooda maahane wamaa yashcuruuna mana oga, ma dareensano oo dareenkaa ma laha. yaa ahla alkitaabi kitaabka ehelkiisiiyow lima takfuruuna maxaad ugu kufrinaysaan biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa wa antum adinkoo tashhaduuna shaahidiin ahoo goobjoog ka ah oo marag ka ah. yaa ahla alkitaabi kitaabka ehelkiisiiyow lima talbisuuna maxaad u dheehaysaan, maxaad ugu qasaysaanood isugu dhex daraysaan alxaqa xaqa maxaad ugu labisteen bilbaatili baatilka oo wataktumuuna alxaqa xaqana aad qarinaysaan wa antum taclamuuna idinkoo og waxaani inay xaq yihiin idinkoo og, ama idinkoo og inaad qarinaysaan xaqii maxaasaa u samaynaysaan ahlu kitaabow. wa qaalad waxay yidhaahdeen taa'ifatun koox waxay tidhi oo min ahli lkitaabi ahlu kitaabka ka mid ah aaminuu rumeeya biاladii kii unsila la soo dejiyey cala aladiina kuwii dushooda aamanuu rumeeyey wajha annahaari maalinta wejigeeda hore iyo gelinka hore rumeeya oo wakfuruu kufriya oo ku gaalooba aakhirahu intiisa dambana maalinta gelinkeeda dambena ku gaalooba lacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay laabtaane. dadka sharafta leh ee magaca leh maamuuskana ummadda ka leh ahlu kitaabka ee culimmada ugu sarreeya ah yaa intay u diraan waxay dhihi jireen ordaha muslimiinta u tagoo waa rumaynay dhaha, ilaa 6 sac rumaysnaada mar allaala marka gelinka dambe la gaarana isaga soo taga. markay saa arkaan dadka cawaanta ah waxay leeyihiin alla dadkii cilmiga badnaaye yuhuudda ah ee ahlu kitaabka intay rumeeyeen miyay ka noqdeen? wallaahi dhib baa jira meesha, way ka noqon doonaani. wax walba oo diinta islaamka ummadda ay uga hor istaagayaan way samayn jireen. markaasuu ilaahay xaaladdaa tilmaamayaa rumeeyay dhaheen waxa lagu soo dejiyey qur'aankii dadka mu'miniinta ah wajha annahaari maalinta wejigeeda hore waa gelinka hore, wakfuruu kufriya oo ku gaalooba aakhirahu intiisa dambii gelinka dambana lacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay ka noqdaan. walaa tu'minuu ha u rumaynina, walaa tu'minuu ha rumaynina. rumayntan waxay ula jeedaan ha muujinina, ha u muujinina. walaa tu'minuu an yu'taa axadun macnaa saa u soo qadaro oo meesha u soo tilmaan, macnaha waxbaa la kala hormarinayaa. aayaddu aad bay waxoogaa isaga adag tahay. walaa tu'minuu ha rumayninoo ha u muujinina an yu'taa waxa aad rumaysan tihiin in la siinaayo, an yu'taa in la siinahayo axadun axad midla maa uutiitum wixii idinka laydin siiyey oo kale, aw yuxaajuukum ama ay xujoodaan, ay idinkaga xujo badiyaanay idinkula xujoodaan cinda rabbikum rabbigiin agtiisa. dad noocaasa ha u rumaynina wixii idinka laydin siiyey inay jiraan oo aad rumaysan tihiin cid la siiyey, ilaa waxaad uga sheekaysaanood u rumaysaanood u muujisaan liman tabica diinakum qofkii diinkiina raacay. qul waxaad dhahdaa ina alhudaa hanuunku huda allaahi ilaahay hanuunkiisa waaye. qul dheh ina alfadla fadligu biyadiillaahi gacanta alle ayuu ku jiraa. yu'tiihi alla wuxuu siiyaa man yashaa'u qofkii uu doono. wallaahu ilaahayna waasicun alla deeqdiisu waasic ay tahay buu ahaaday, caliimun ee cilmi badan. wax idinka laydin siiyey axad in la siinahayo ama la siiyey axad kale in la siinahayo ha u rumaynina xaaladda oo ha rumaynina inay jirtaba. sababtu waxay tahay waxaad u sheegtaanood u muujisaan keliya inta diinkiina soo raacday, amaa dadkan kale haddaad u muujisaan alla xagtiisay idinkaga dood helayaan. saynan arrintaa u dhicin qofna ha u caddayninoo ha rumaynina. qul dheh ina alhudaa huda allaahi hanuunku waa hanuunka ilaahay saa ku dheh. qul dheh ina alfadla fadligu biyadiillaahi gacanta alluu ku jiraa. yu'tiihi alla wuxuu siiyaa man yashaa'u qof allaala qofkii uu doono. wallaahu ilaahayna dulfadli alla fadli u saaxiib ah waaye, alcadiimi ee weyn. wallaahu ilaahayna waasicun alla deeqdiisu ay waasic tahay waaye, caliimun ee cilmi badan. yakhtasu wuxuu ku khasisaa
oo si khaasa uu u siiyaa biraxmatii naxariistiisa man yashaa'u qofkii uu doono. qof allaala qofkii uu doonuu ilaahay naxariistiisa siiyaa. wallaahu ilaahayna dulfadli fadli siin alla u saaxiib ah waaye alcadiimi ee weyn. ilaahay asagaa ugu talagalay nebi moxamed inuu nebi ka dhigto. ha sheegina iyo ha rumaynina nebi moxamed inuu nebi yahay iyo waxba waxaa kama jiraan. yakhtasu wuu ku khaas yeelaa biraxmatihi raxmadiisii naxariistiisa man yashaa'u qofkii uu doono ilaahay. wallaahu ilaahayna dulfadli fadli alla u saaxiib ah waaye alcadiimi ee weyn. wamin ahli اlkitaabi man in ta'manhu wbillaahi tawfiiq. wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam.